Asalaamu calaykum asxaabi soo dhawaada. Waxaan joognaa hadda qaybtan oo ay ku qoran tahay dynamic creative. Taas macnaha dhib male iska daa. Cashiro kale ayaan ku sharaxi doonaa insha allahu tacaala. Hadda waxaan rabaa marka offerkan iyo inaan hoos sii soconno oo aan ku tuso marka qaybta oo ad set levelka aan ka hadalnay in macnaha aad step by step u fahamtid. So hadda marka offerkan haddana aan ku dhufto, offerku macnaha waa markii aad sameynaysid oo kale kaba soo qaad offer aad sameynaysaa for example. Offerku macnaha waa adoo sameynayo kale haddii aan ku dhufano kale on aan dhahno uma baahnid laakiin just in case u baahanta oo kale inaad ogaatid. Hadda meeshan Mr. Bossless ay ku qoran tahay waa businesskii magacii oo ad accountkii. Haddii aan kusii dhufto kale waxaan helaa pageka markaan helo kadib wuxuu leeyahay create offer. Create offer means obviously create offer oo macnaha haddii aan rabo inaan macnaha wax haysiiyo oon rabo 30% off kaba soo qaad waxaan gadayaa macnaha waxaan rabaa inaan quick aan sameeyo promotion oo macnaha discount code iyo waxaas inta sameeyo aan haysiin saas u create gareeyo laakiin 100% uma baahnid waxaas. So marka haddii aan ka tagno meeshan oo imaano budget iyo schedule haddaan imaano budget schedule-ku macnaha waxa waaye lacagtii aad bixi lahayd iyo waqtigii haysiinta ay ku bilaabi lahayd. Marka sometimes waxaa laga yaabaa inay ku taagan tahay lifetime oo macnaha inta aad rabtid inaad bixisid kaba soo qaad 350 pounds ayaga macnaha meeshaad igu soo qormatay laakiin kaba soo qaad lifetime-ka 50 inaan baxshaa rabaa aad tiri. Laakiinse lifetime anuu ma isticmaalo qofna kulama taliyo inuu isticmaalo. Waxaan kula taliyaa dadka inay isticmaalaan daily budgetka macnaha waxa waaye maalintii intaas ayaan rabaa inay iga baxdo markaan rabana inaan iska dimi karo. So marka hadda haddii aad imaatid meeshan oo daily budgetka oo kale aad ku qortid oo kale kaba soo qaad 20 pound lacagtan waa lacagta ingiriiska. So kaba soo qaad haddii aad tiraahdo oo kale 20 pound maalintii waxaan rabaa 10 pound inay iga baxdo. waa budgetka maalintii aan intaan rabo inay iga baxdo waa macnaha wax kale ma rabo. Okay, marka Facebook soo u shaqeeya waxay tahay haddii meeshan aad u soo dhawaatid aad fiirisid uu kuu sharaxaa markaad saartid arkaysaa. Marka Facebook qaabka u shaqeeya waxay tahay markii aad dhahdid maalintii 10 baan rabaa inay iga baxdo wuxuu sameynaa 10 baan wuxuu week camal oo spread intuu ku sameeyo wuxuu ku leeyahay week intaas ayaa kaa baxayso. Marka week haddii lagu dhufto kale 10 baan maalintii macnaha maalin kamid ah waxa laga yaabaa marka inay 12 baan kaa baxdo maalin kamid ah waxa laga yaabaa inay kaa baxdo 13 baan maalin kamid ah waxa laga yaabaa inay 9 kaa baxdo maalin kamid ah waxa laga yaabaa inay 8 baxsho. Adiga laakiin week lacagtii marka la isku daro weekii toos isku imaaya 10 baan ay noqonay macnaha. Marka ay hubina fahamtay marka maalin waxa laga yaabaa inay 5 baan leh oo iska baxsado haysiinta baxdo 5 baan leh noqoto maalin waxa laga yaabaa 15 baan noqoto maalinta xigto waxa laga yaabaa 8 noqoto. Marka adiga xogo maalintii koowaad meel ugu tala gasho 10 baan maalintii inta dhahday oo aragtid 15 baan inuu socodsiiyay calooshay ku xanuunin har attack ay kugu dhicin waa caadi because qaabka u shaqeeya waxay tahay spread uu ku sameynaa week camal oo weekaas haddii 10 baan maalintii lagu dhufto weekii kaba soo qaad adiga 7 maalmood hadii 70 ay tahay ama 70 macnaha goolka wuxuu yahay 70 kaas inuu baxsho weekaas. Laakiinse oo maalinta koowaad 10 dhiibo maalinta koowaad 10 kaa baxdo maalinta labaad kaa baxdo 15 maalinta kaa baxdo maalinta ku xigta 5 kaa baxdo maalinta kaa xigto saas camal intuu socoto laakiin weeka inta ugu tala gashay in ka badan kaa baxayso. Marka waxaa ku xigto schedule-ka oo waqtiga aad ugu tala gashay in ay haysiinta ku bilaabato. So haddii meeshan aad ku dhufatid oo kale oo aad rabtid in macnaha ay maalin heblo haysiintan inay dhamaato ama waqti hebel inay dhamaato haddii rabtid oo kale meeshan ka dooran kartaa. Sida aniga macnaha aan isleeyahay haddii aan kugula taliyo qaabka ugu fiican oo macnaha aad isleedahay haddii aad rabtid waxaa fiican haddii kaba soo qaad hadda aniga waqtiga aan joogo waxa waaye waa waqtiga London time. Haddii aad fiirisid saacadda wax yaraa ka dhimanba in habeenkii oo macnaha maalinta cusbad inay bilaabataba
tomorrow waxaa ka dhimanba wax yar so marka hadda xayisiin haddi kaba soo qaadba hadda waqtigan hadduu ahaa lahaay oo kale 3 o'clock oo galabtiya 3 o'clock galabtii hadduu yahay oo kale for example xayisiintaas aan bilaabo macnaha wuxuu isku dayaa Facebook from 3 ilaa waqtigan oo 3 o'clock galabtiya ilaa habeenkii intuu ka dhamaanayo inuu 10 baan socodsiiyo isku dayaa smages macnaha uu socodsiin karo uu socodsiinaa so marka waxaa fiican inaad bilaabatid waqtiga oo macnaha markaas la marooyo haddii macnaha subax ay ku taho kale oo markaas subax ay ku taho kale aad bilaabanaysid waa caadi toos u bilaabi kartaa xayisiintaada laakiin haddii duhuradii iyo ay marayso kale waxaa fiican inaad ku sadgaraysid maalinta ku xigto kaba soo qaad haddaan maalinta ku xigto wax yaraa ka dhimanba so haddii marka hadda aan xayisiintan sameylahay waxaan sameylahay 24 bisha aan dhilahay meeshaana waxaan ka dhigi lahay habeenkii oo macnaha 6 saac habeenimo ka dhigi lahay midnight aan ka dhigi lahay laakiinse waxaan testgareeyay marar badan ayaa waxaan testgareeyay sida macnaha waqtiga fiican oo midnight-ka iyo laakiin hadda adiga almost 2 sano la soo dhaaf ugu dambeysay midnight kama dhigaynin waxaan ka dhigayay 3 o'clock oo in the morning aan ka dhiganay inay ii bilaabato xayisiinteeda because markaas waxaan dareemay in macnaha xogo 3 saac ay ka soo baxday Facebook oo macnaha 3 hours ay soo dhaaftay iyo markii 3 o'clock ay bilaabato 3 saac kale oo haysta macnaha ilaa 6 in the morning laga gaarayo xogo warm up inta sameysa xayisiinta by the time oo dadkii soo ka kacaan oo kale xayisiinta diyaar waaye marka waa test fara badan oo marka inta soo xayisiin aad create gareyso different waxyaaba oo aan test gareeyay waa test gareey kartaa midnight adiga darabtid haddii kalena waa iska dhaafi kartaa oo midnight oo 12 o'clock habeenimo waa bilaabi kartaa laakiin haddii rabtid 3 waa barabay kartaa so waxa waaye up to you marka cashirkan waxa waaye waxaan ku koobaynaa inta cashirka ku xigo ayaan sii geli doonaa insha Allah taala hope inaad fahamtay marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh